suurtagal ma tahay in la iska xado roobka? sidee loo beertaa daruurta ama waxa ay dhahaan cloud seeding? India oo ku eedeysay China inay ka xadeen roobab ka di'i lahaa wadankooda. waxyaabaha maalmahan ay Soomaalida hadal haysa ee xatooyada roobka wax cusub baa mise wax dunida ka jira. Fire a laser at the sky and make it rain. Oh, that sounds more interesting. magacaygu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. mowduucayna waxaan ku falanqeynaynaa dood maalmahan ka dhex taagan Soomaalida oo ah xatooyada roobka. laakiin inta aanan u gelin marka hore aan isla fahanno waxa la dhaho weather modification. weather modification haddii aan af Soomaaliyeeno waa wax ka bedelidda cimilada hawada. waxaana hoos imaada waxyaabo badan oo ay ka mid tahay uguna horeyso beeridda daruurta, in la sameeyo daruur macmal ah. waxaa kaloo ka mid ah in la sii saadaaliyo isbeddelka ku yimaada hawada ama seasonal time-ka sida xagaaga, gu'a, jiilaalka iyo deerta. weather modification waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in looga hortago duufaano imaan lahaa iyadoo la sii saadaalinayo waqtiga ay suurtagal noqon karto in ay duufaanadaas imaadaan. sidoo kale waxyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa cilmigan weather modification. laakiin annaga waxaan mowduucayna ku lifaaqaynaa dooda maanta taagan ee ah roobka ma la iska xadi karaa? xadista roobka inta aanan u gelin waxaa iyadana su'aal ah, roobka ma la samaysan karaa? haa, waa la samayn karaa roob macmil ah iyadoo la isticmaalayo cloud seeding ama in la beerto daruuro macmal ah. broseska abuurista daruurta waxaad u baahan tahay dhul bannaan inaad ku rakibto qalabkan. sidoo kale waxaa laga maarmaan ah inaad haysato koronto high voltage ah. waxaana sidoo kale laazim ah inaad isticmaasho maadada loo yaqaano silver iodide. maadadan ayaa xoojinaysa lana howlgelayso falaasiga. kadib waxaa samaysmanaya qiiqaas cad ee aad u jeedaan. hawada ayuu u baxayaa qiiqaas wuxuuna isku bedelayaa daruur. haddii aad daruurtaas samaysatana waxaad haysataa roob. dowladaha caanka ku ah ee sameeya roobka macmilka waxaa ka kow ka ah USA, China, Ruushka iyo India. waxaa jirta gobollo badan oo ka tirsan waddanka China. gobolladaas waxay ku tiirsan yihiin dhul beeraad laakiin ma helaan roob dabiici ah. waxay ku tiirsan yihiin oo ay helaan roob macmil ah oo ay samaysay dowladda China. sidoo kale waddanka isu taga Imaaraadka kasoo bilaabata sanadkii 2000 ilaa maantadan la joogo waxa ay samaysanayeen roob macmil ah oo dhulkan wuxuu ahaa dhul lama degaan ah. wayna adag tahay in dhulkaas uu ka da'o roob dabiici ah. waddanka isu taga Imaaraadka roobabka ka da'o 80% waxaa samaysay dowladdaas oo waa roobab macmil ah. of its rain that processed in the cloud that comes as rainfall. So by these operations we try to increase this amount by, for example, from 15 to 30%. haddaba su-aashan haddii aan u imaano ma la iska xadi karaa roobka oo meeshii uu roobkaas ku di'i lahaa inta laga leexiyo meel kale ma la geyn karaa? haa, waa wax dhici karo weliba ayadoo la isticmaalayo maadadii aan soo sheegnay ee silver iodide. diyaarado ama drone ayaa la isticmaalayaa waxaana lagu rakibayaa falaaska ay ka buuxaan maadadan silver iodide. kadib diyaaradahaas ama droneska waxay ka hortagayaan daruurihii oo roobka inta uusan di'in wuu soo curtaa oo isa soo qaqabsadaa. waxayna diyaaradahaas ka soo marayaan daruurta dhinaca dabaysha u wada ma ahana dhinaca kale. diyaaradihii waxay ku sii deynayaan maadadan silver daruurihii. kadib daruurihii waxay bilaabayaan inay socdaan meeshii ay ugu talagaleen markay gaaraan ayay ka joojinayaan. meeshaas ayuuna roobka ku da'ayaa. dowladaha cloud seeding-ka sameeya processkan badanaa waxay u adeegsadaan gobollada oo roobka aadka uga da'o ayay waxay ka soo kaxeeyaan daruuraha waxayna geeyaan meelaha ay abaaraha ka jiraan. dowladda India ayaa waxay China ku eedeysay inay ka leexsadeen roobab ka di'i lahaa waddankaas. sidoo kale waddanka Ethiopia madaxweynahooda Abiy Ahmed ayaa wuxuu ku faanayay inay waddankooda ka mid noqdeen dowladaha sameeya cloud seeding. wuxuuna sheegay waqtiga hadda abaaraha lagu jiro inay sameeyeen roobab macmal ah. waxyaabahan weather modification oo ay ka mid tahay in la abuuro daruur ama in la sameeyo roob waa waxyaabo soo jireen ah oo dunida laga isticmaali jiray laakiin Soomaalideena waa ay nagu cusub tahay. tiknoolajiyadda iyo dunida casriga ah ee aan joogno waxyaabo badan ayaa dhici kara oo aadan filanaynin. haddana maanta muuqaalkan intaas ayuu noogu egyahay. haddii aad naga cusub tahayna soo dhawow muuqaalkana like saar si dad badan u sii gaaro. waqtigaagana waad ku mahadsan tahay.